Asalaamu calaykum. Soo dhawow. Haddii aad channel-ka cusub tahay, magacayga Victor Jaga. Maanta waxaan ka hadlaynaa ciwaan muhiim ah ee dadkan u baahan yihiin in laga wacyigeliyo oo ah maxaa dhici kara haddii qofka ceebihiisa la faafiyo. Runtii ka Soomaali ahaan waan jecel lahay in dadka kale ceebahooda aan baarbaarno ama aan faafino. Laakiin video waxaan kugu soo gudbi doonaa maskaxiyan ahaan ama caafimaad ahaan qofka maxaa saameyn ku yeelan kartaa. Runtii baraha bulshada labadan beri waxay haysatay gabar la yiraahdo Queen Canab I think magaceeda si fiican ma aqaano laakiin waxay caan ka tahay social media khaasatan TikTok. Runtii waxaa dhacday in maxaa la yiraahdaa video oo kale laga helo kadibna in baraha bulshada aad loogu faafiyo. Runtii markaa isticmaalaysid TikTok ama social media waxaa arki dadku dhahaayo WhatsApp iga soo hadal videogaas kuu soo diraa wax. Runtii waxaa u maleysaa in maxaa la yiraahdaa TikTok aad u sii xumaanayo. Laakiin haddaba dadkaas faafinayo runtii ma aaminsan yihiin ama ma aaminsana miya qofka ay ka hadlayaan ama qofka videoyaasha ay ka faafinayaan inuu beri sabso karo gacantooda. Haddaba ogaw. Waxaan kusoo gudbi doonaa marka haddii qofka maxaa la yiraahdaa ceebaha laga faafinayo oo sii bato qofka maxaa ku imaan kara. Kow waxaa ku imaan kara qofka inuu dareemo wax la yiraahdo social phobia. Social phobia maxaa waaye marka? Social phobia waxaa la yiraahdaa qofka inuu dadka dhan naco. Bulshadii soo dhex gali jiray maxaa la yiraahdaa bulshadii imaan jiray waxaa dhici karta inuu dadka ka socnaado iska bixiyo inuu gooni isku taago inuu xataa bulshada soo dhex gali waayo because ceebihiisa dadka dhan wareejinaya xataa waxa laga yaabaa asxaabtiisa familkiisa inuu ka fogaado because of maxaa la yiraahdaa ceebtaas uu ka cararayo kaliya inuu dadka arko. waxaasna yaa usoo bex anaga ilaan TikTok markaa gashid qofka markuu waa bilaadan TikTok isticmaala so TikTok markuu fiiriyo waxa laga yaabaa inuu videoyaashiis arko inuu maxaa la yiraahdaa dad xumaan ka faafinayo oo aad u siini jiro. So marka kow waxaa ka dhalan kara waxaa waaye in qofka uu ku dhaco wax la yiraahdo social phobia oo ah inuu dadka ka fogaado ama uu ka cararo. Labo qofka waxaa ku imaan karo wax la yiraahdo depression waxaa la yiraahdaa qofka inuu ku imaado niyad jab. Inta badan waan aqaanaa gaalada waxay isku dilaan gaalada wax la yiraahdo niyad jab ama depression. Shaqay doonayaan oo kale qofka ama shaqo raadsanaa waa loo diidaa wuxuu sameynaa uu diidaa guriga u imaanaa guriga isku xiraa maxaa la yiraahdaa guri kama baxaayo maanta dhan fikir iyo murug ay ku jiraan. So marka qofka waxaa laga yaabaa marka xumaanta aad faafinaysid inuu 24 hours murug ku jiro 24 hours dhibaato ku jiro. So marka aakhirkii depression waxay keentaa qofka nafsidiisa inuu halis geliyo. So yaa usoo bixi marka haddii maanta qofkaas halis u geliyo nafsidiisa beri adaa usoo bixi maanta aakhir waa lagu weydiin doonaa maxaa sabab inaad qofka ceebihiisa faafisid. adiga qof walba ceeb uu leeyahay runtii marka laga hadlayo qof walba oo bilaadan ceeb uu leeyahay laakiin ceebteena waxaa waaye waa asturanta. laakiin qof haddii maanta ceebtiisa uu banaan kusoo baxo meesha kharileed haddii aad faanisid haddii aad comment ka dhibatay aad dhahdo saan waay cay macnaha waxaa waaye maxaa la yiraahdaa wax fiican ma runtii. So marka qofku wuxuu ku imaan karaa marka aakhirkii nafsidiisa inuu halis geliyo. wallahi nafsidiisa halis ayuu geli karaa hadhowna beri ka maalina saameyn ayay kugu yeelan doontaa. xitaa qofkaas hadduu maanta dhibaato isku geysto beri nafsiyan ahaan xataa saameyn kugu yeelan kartaa. So marka please dadka haddii aad aragtid ceebahooda waxaa isku dayda inaad qarisid because the more ceebihii dadka aad faafisid waa the more aad dhibaato iyo maxaa la yiraahdaa niyad jab aad kulantid qofkana runtii uu saameyn u geysto. Maybe hadda dad badan adduunka way soo mareen oo caan ah oo ceebo qaar ay leeyihiin banaanka kusoo baxay kaliya gabadhaas uma horeysa. dad badan aa jiro oo ceebahooda banaanka kusoo baxay oo xataa adduunka caanka ah. laakiin dadkaas runtii maxaa la yiraahdaa waqtigooda lasoo dhaafay. marka waxaan rajeynaa insha Allah tacaala in maxaa la yiraahdaa ceebaha dadka akhri doontiyo in maxaa la yiraahdaa insha Allah tacaala aad wanaaga iyo maslaxadda ummadda ka shaqeyn doontaa. So marka waxaa jeclaysa inaad wadaago dhibaatooyinka imaan karo xagga caafimaad ahaan. Thank you so much.